بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa taariikhdu tahay 10 bishii 10aad 2017 waa maalintii saddexaad ee gobolka Gabiley uu ka socday kaadh bixinta kaadhka codbixiyayaasha waxaan dhammaan bulshada deegaanka Gabiley ku nool sheegaya inay qaataan kaadhka codbixiyayaasha taasoo ah muwaadinku ku cadeynayo inuu ku codeeyo doorashada golaha deegaanka doorashada golaha baarlamaanka doorashada madaxtooyada iyo nagu soo foodan nin walba ka faa'iideyso muddada 5 maalmood ay maanta laba cisho dambe noo harsan yihiin inaynu qaadanno 58,000 ee qof ee dhammaantood iska diiwaangeliyay gobolka Gabiley inta dhimatay mooyaan waxaan leeyahay ummad walba waxa lagu tirinayaa waxa lagu qaybinayaa macaawinooyinka la qaybinayo waxa lagu qaybinayaa inta qof ay iska diiwaangelisay ee goobta ka codeysay ayay ku helayaan saamiga qaybsiga mashaariicda horumarineed marka nin walba ka faa'iideyso si aan deegaankaaga u waayin mashaariicda horumarinta inaad qaadato kaadhka aad ku codeynayso saddexda doorasho ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee foodan ugu soo haya arqalada badan oo soo noqday wax ka mid ah degmada Gabiley oo kale dadka oo goobihii ay iska yar khalkhaleen oo goobihii raadinaya oo ninkii meeshii uu ku ogaa guriga uu ku ogaa guriga lahaa qof shacbiya oo laga kireystay gurigii qofkii muraadsaday oo ama cid ka kireeyay ama isagiiba galay kadibna guri meeshii ku dhow loo raray meeshii qofkii tagay magaalada ka maqnaa muddo halkii markuu eego yimaado inuu ka qaato kaarkiisii uu ka waayo inta uu meeshii raadinaya ay waqti ku qaadato bulshada ugu weyn ee taala oo taas waxaan leenahay taasna waa laga bixi doonaa maadaama dawladdu meelaha iskuulada ee iyaga markii hore ama xarumaha dawladdu sidii hore weeyaan oo caqabad iyaga ka jira Rahmaan Rahiim waa salaamayo dhammaan ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan reer Gabiley waxaan ku boorinayaa in ay 58,000 oo qof ayaa isdiiwaangeliyay إن شاء الله تعالى واحد رجعنا نستديو كنتكم با دوطان كاركو بديوانجلين واحد جرى عقبضة يرير أو حاجة فرسمة هو سوحويا كوميشن كما لها كلية كارا وإليهين واحد عليهم كليها مرة قاركو مركبات خلقة كريستا هو بابلي قان ويا ميل كلا أو أن كفوقين هالكفر looga kireeyo haddana maxaan ku raadayay marka qof kasta halkii uu ka qaatay marka hore kaarka diiwaangelinta haddii ay meeshii uu ka waayo kama fogay waa agagaarkeeda dadka ha weydiiyo dabeedna halkaa ha u doonto waxaan rajaynayaa inaanu qofna hilmaamin si uu xaqiisa u guto codbixinta oo maxaan ku raadayay 3 doorasho oo inagu soo socda 3daba waxa loo adeegsan doonaa kaarkaas gobol walba iyo degmo walbana waxay ku xisaabtamaysaa waxa weeye tirada codbixiyaha hadday horumarinta tahay iyo haddii ay integrationka kale bulshada dhexdeeda tahay dhinac kasta tada kaarka codbixinta ayaa waana fursadda keliya ee muwaadinku leeyahay oo xaq u leeyahay in maalintaasi cidda uu doonayo bedelo ciddu doonayana keeno waxaynu ku bedelnay halkay qoriga ka ahayd ayaynu ku bedelnay inaynu cod ku ridno kaynu doonaynana aynu ku erino kaynu doonaynana aynu ku keenno qodobku waa kaas waxaan aad iyo aad idinku celcelinayaa inaad qaadataan shalay tolo waxaan soo maray goobo badan oo tincadda maxaan ku raadayay ilaa oogada sare oo dhan waan soo maray iminkana waxaan taaganahay gobka waan idinku hambalyaynayaa fursadda aad taagantiin qofna ayaanu iska lumin kolley sidaa ay xogeeye iyo xildhibaankuba sheegeen waxa weeyaan maanta waxa wax lagu goosanayaa waa kaadhkaasaa qorigii noqday waxa weeye galbeed markaynu maanta anu xildhibaan booramaamanahay Gabiley waxaanoo yimid si dadkaygu u qaataan kaadhka waxaan baryo galbeed buu dalka horta u tartamaya Soomaaliland galbeedku gashtuubo ayalka lagu kala buxo waxaan leeyahay gaar ahaan Gabiley codkii badnaa ee Gabiley lagu yaqaanayaan inaan hoos uga dhicinin waa inaynu dadaalnaa abaaraha iyo duruuf kastoo jirtana waa inaynu u dulqaadanaa waxaan leeyahay inaynu duruuf kastoo jirta aynu u dulqaadanaa inaan ka caajisi kaarka la qaato